ay doctor ma sha Allah ma runtii waa daawo qiimo badan oo aan anigu shakhsiyan waxba isaga gartay aniga madaxa aad ii xanuuni jiray marka alxamdulillaah rabbil caalamiin madax xanuunkiina waa igaga tegey anigii oo dhan waa ku qaboway ma sha Allah daawada daalkii iyo fatiigii badan oo qofka maskaxdiisa aadka ugu jirana aad baan dareen yani isbeddel uga dareemay ma sha Allah sababta aan waalidkii iyo aabbe iyo caruurta yani iyo xaaskii dadka aan kaaga qaadayo ehelkaana waxa weeyaan waxay ku kalifayna dee wacani waxa weeyaan waa natiijada aan ku arkay weeye moogtahay yani markii wixii wax ku taraan baad adiguna moogtahay ogaanaysaa qofka kula talinaysaa siinaysaa marka walaale ma sha Allah iyagana ilaahay waxaan ugu barayaa u rajaynayaa inay fahmaan waxa haysid adigana waxa laga rabaa doctor inaad dadka u sharaxdid oo siisid laakiin Soomaalidu waa dad iska inda ku miyiraa laakiin waxaan u rajaynayaa inay dadku ay waxooda dalkooda ku yaala lagu daaweynayo iyo dhaqaatiirtooda inay fahmaan oo wax ka qaataan taladan siinayo taas weeye sababtoo ah daawooyin meel kale ka yimid oo shirkada samaynayaan marka waxba micnaa mal annaga ku soo jabnay oo qurbo joognay oo soo aragnay oo waliba wadamada ugu horeeyay joognaa Australia joogna waxay la joogaan malahan marka waxaan kula talin lahaa dadku daawadaas qaateen hana isticmaaleen dhan walba insha Allah way ka anfacaysaa waana daawo waxtara